شرح محمد عبد الرزاق محمود أبو بكر وتاجن حلك مدحتنimada Soomaaliya ayaa magaalada Garowe ku qabtay xaflad ballaaran oo ku shaacinayo mashruucnimadiisa kulankaas oo lagu qabtay jaamacadda BSU waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka aqoon-yahano dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada Garowe iyo qaybaha kale ee bulshada ku nool caasimadda محمد عبد الرزاق محمد أبو بكر ayaa ka sheekay taariikhda waxqabadkiisa iyo waxyaabaha uu qaban doono hadii uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya wuxuuna sheegay inuu wax ka qaban doono musuqmaasuqa shaqo la'aanta iyo taariibka haysata dhalinyarada iyo waliba dib u dhiska ciidan qaran waa kan dhalinyarada waxaan ka soo hadlay inaan u baahanahay inaan sameeyno horumar dhaqaale jidka aan u marayno horumar dhaqaale waa inaan shaqo u abuurnaa dhalinyaradeenna waa inaan soo jiidanaa maalgashiga caalamiga ah ee tooska ah taasna ma samayn karno annagoo aanan amni haysan ma samayn karno taas annagoo aanan la dagaalamin musuqmaasuqa iyo weliba ma ahaan doono waddan xasilooni ka jirto marka dhalinyarada Soomaaliyeed aysan rajo ka lahayn mustaqbalkooda dhaqaale waxaan filayaa inay wali xusuustiina ku jirto dhalinyaradii badneed ee Soomaalida ahayd ee dhawaan badda ku halgantay waxay u tahriibeen oo raadinayeen shaqo iyo nolol fiican dawladdeedu waxay samayn doontaa wax walba oo ay awoodo inay shaqooyinka abuurto dalkeena gudihiisa مغن عبد الله أحمد والشيخين وحبذا كوي هاي تاريخ المشرح آيات المامين يسمحان أي سود وينيان مشرح ماذا محمد عبد الرزاق محمود وحنا التلمامي إنه وحكى قبان كره حالة الصومالية هدي للدورتو مركور وحنا هاي أمودي من شرف كربضان أي سوتمي إيو يسوي هرمت كسر كان لوجي هاي ويلك يدلي رضا ماله رجي قبل ماله iyo inta dhagtooda iyo maqlaysaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Abdullah baygo horeeyo hadalka waxba kama reebo oo u dhamay waxa idin tirada marka dambe xidhadu laakiin haddii isku ay xajseena saaxiib baan u dhaho oo gobol hadalka intuu yirina waa la qabaa waxa kale ku korinaya oo ka badan ninkii Cabdirasaaq Maxamed oo Bakari qofkii الله رباي دولتها بقشين هرجل كعانكي وحى نك هرجل يسوى فرصومالي ذا ماتا إنه كنا عارضين اللي يتركوا وحى إنه مراحل سنة بقى عم بي وذاتية في الرضا سنة نك هرجل الدرك الصومالي ونفر صومالي ذا هرجل يسوى تاريخ لما هدينا دولة تعصى خفرا من kasoo qaybgalayaasha munaasabadda ayaa su'aalo kala duwan oo u badnaa sidii loo heli lahaa ciidan qaran iyo waxqabadkiisa weydiiyay musharax Maxamed Cabdi Rasaaq Maxamed hay ardayda dhigata jaamacadda BSU kulliyadda Development Study musharaxa magabad wa salaamaya qorshayaasha uu noo soo jeediyayna aad baan uga helay marka waxaan rabaa inaan dhaho qorshaha abuuridda askari wadaniya waxaan naga ballan qaadaa hadii aad xilka qabatid inaad abuuraysid askari muwaadin ah jecel dhulkiisa aan la bahdilin aan loo keenin yani nin dad kale ka yimi hadii aad xilka weydinna noqo kanu advocate gareeya in la abuuro askari wadaniya sidee ku abuuri karnaa askari wadani ah oo qaatay su'aasha walaal waxaa jira qaab loo maro dhisitaanka ciidamada waqtiga aniga aan soo koray waxay ahayd waqti ciidamada Soomaaliya ay marayeen heerka ugu sarreeya Afrika iyo dunida inteeda badan waxay ahaayeen waqti ay Soomaaliya lahayd ciidanka labaad ee ugu tirada badan Afrika oo dhan waxay ahayd waqti Soomaalida ciidankeedu waxa ciidan runtii aad loo ixtiraamo looga dambeeyo anigana waxaan ku soo koray guri askari ciidan qaran inaan sameeyno
waxaa ka horeysa labada qodob oo aan sheegay waa go'aan siyaasi ah iyo ficil siyaasi ah. Maxamed Abdi Casiis Cusmaan, Jubaland TV, Garowe.